yar dhaafsadaan aakhiradooda iyo adduunkooda iyo ciddii ummadan hogaankooda u habbooneed ay dhaafsadaan dad ummad odayaal iyo kaaba qabiilo iyo cuqaashi ummadda lagu sheegay oo dadkii iyo dalkii iyo dantii iyo diintoodii dad u soo xula ku habboon laleeyahay inuu wax ku xiro in misaal la siiyey runtii waa diin xumo waa akhlaaq xumo adduunkana waa cayb aakhirana waa cadaab in ninka meeshan ummadii codaynaya ee baarlamaan soo galay ee golo sara galay golo hoose galay inuu ku codeeyo dad xukun u taagan qofkanaa ii hanti badan qofkanaa heshiiska ii dhaqaalo badan war lacagtani bilo gudahood bay dhammaan waxaan la isiiyey markay dhammaato latiina kaa dhammaato adduunka waad ka gaajaysan tahay aakharana ilaahay hortii dembi baad la tegi maxaa kuu yaalla waxaad ka garaabaysaa dadkeena Soomaaliyeed inay markay rumeeyaan ninkii siyaasad gala tuug beenaala away markay rumeeyaan waxa qofalka waxa maalin walba hortooda uga jeedaan dadkii inay ka rumeeyaan oo ay aaminaan bari dadkii siyaasiyiinta ama baarlamaana waxay u sheegaan inay ka rumaystaan waxa ka badan inay yiraahdaan tuug beenaala ah sababtoo deegnimo wuxuu shalay sameeyay arkaysay de shalay waxa ku taqaynay umadka kula dhaqantaa dadkan golayaasha noqonaya laba xaaraan yeena isku darin baan dhihi lahaa laaluush xaaraan inaad qaadataan oo lacanadi daba socoto umadiina aad khiyaantaan waxaan la yaabay nin Soomaalida kamid ah waa hore doorasho wuxuu yiri lacag waa qaadasho laba dambi weeye inaad lacag laaluush qaadatana waa dambi dambiga dambi kale inaad ku darto qof aan ummadda lagu aamini karin ama dad kaga habboon ay taagan yihiin aad u codaysana waa dambi labaad waxaan dhigaa labada dambi in la iska ilaaliyo way waajib hadduu mid ka dhaco inaad mid labaad ku darto waa dambi labaad iyo xaraan waxa dhici karta in qofku laaluush soo qaatay dambi buu galay qof uu og yahay inuusan habboonayn oo san mudnayn oo laaluush ka qaatay waxa laga yaabaa ballan maan galay أهر بلنتو بين به باطل وي ما يلزم حكم شرعي wax ballan ku laazim kitaab lagu mariyay kuma laazimo waxaan ugu dheeraa laga yaabay waxa la yiraahdaa al-faqih al-lisba la yiraahdaa tuug faqiha fiqhi sharciga aad u yaqaanay baanin meel ilaa socdo dhaxda u istaag wuxuu yiraahdaa waxa haysata dhig wixii kala markuu ka qaaday wadaad dharkana bix xubnin weyn baan hay qaawinine wixii kala dhan qaadatay iyo magaaladii waa maalin aan oo qaawan ma geli kare iska daa ma jirtiraada hadaba wuxuu waxaan ballan ka qaado markaan tago dharkan waan bixin waan ku keeni cidna ku sheegi maayo markaas wuxuu wax ballan ka ma xidhno maxaa dhacay bukraha baa tay waa lagu qasbay sharciga islaamkuna bukraha waxa ka xidho ba qabo in dhaari guuri dhaartan bukraha laba qabta guuri wala tuug waa sharcigana waa yaqaano ruuxa raba inay raado waa la dhaariyay ballan ma soo qaaday wax ballan iyo dhaaraho sharcigu oo kugu waajibaya inaad fuliso qof laga fiican yahay aad fulisay ma jirto laba dambi ha isku darin qofku ballan been uu qaaday dhaar xaaraan uu galay laaluush xaaraan uu cunay ma wuxuu rabaa haddana uu og yahay qofkan in looga habboon yahay inta socotay ummadda danteeda iyo diinteeda uga habboonta dambi afraad ku dartay xal ma dhaartaasna dhaarad macsiyo ku dhaaratay weeye kafaara gud 10 miskiina maalin qada ka bixisa kaaga filan walaalayaal waxaan rabaa inaad fariina balkan laaluushka xaaraanta iska daayay inta dhiman wixii tagayna ka toobad keena haddaydan laaluushka iska daynaynin dambiga laaluush qaadashada ah ha ku darina cidaan mudnayn oo laaluush ka qaadateen aad u codaysaan ummadii hoggaankeedii iyo diinteedii iyo danteedii iyo dunyada iyo mustaqbalkeedii oo idinku kamid tihiin oo ahalkiina kamid yahay oo ilmihiina kamid yihiin oo walaalihiina kamid yihiin inaad haddana ugu sii codaysaan cidaan dantii ummadda ku jirin cid kaga habboon cid ay taagan tahay waa kharasad iyo duuseed waa ceeb iyo cadaab shilimadan xunta xaaraanta aad cunaysaanna bari idinka dhamaaday adna waad gaajaysan tahay ummadana tuug khaain oo beenaala aad u tahay aakharana cadaab baa ku sugaya ninkaad u codaysay adoo og in lagaga habboon yahayna dambi kasta oo uu sameeyo qayb baa lagu qoraya markii intii hore cuntay iyo inta soo socotay yaa badan taban inta soo socota ka badan ninka dambigii uu sameeyo dhaneed ogeyd in lagaga habboonaa haddii aad haddana ugu sii rido dhaarad ka tooba kafaara gudan karto
iyo laaluush xaaraan oo in yar kaaga dhanaa waxaa ka dambi weyn oo ka sii kabiiraysan inaad haddana usii codayso qof aad og tahay inuusan mudnayn ama